السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتنا داوانيسو oo ku xiran channelka Manka Media waxaan leenahay ciid wanaagsan kull caam wa antum bi khair ciidan ciideeda kale bashbashi barwaaqo Allah nuu gaarsiyo maanta halkan waxa marti nagu ah alfanaan Ahmed Jacelo oo ku magac dheer loo matalyaanka alfanaan maxaa leedahay taageerahaaga iyo inta ku daawaneysaba aad ma santahay walaaliko taageer igaad baan u salaamayaa iyo asxaabta dhamaan ku xiran channelka Manka Media waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak alfanaan Ahmed Jacelo halkan waxaan ku soo diyaariyay su'aalo yar aan rabo inaan kula yeesho marka su'aalahaas oo ah horta su'aashiida ugu horeysa waxay tahay noloshaadii hore wax aqwad ama ka soo martay run ahaantii noloshayda aqwad waan kala soo kulmay laakiinse hadda uma malena inaan kaaga sheekin doono waan gartay kulley waa secret ku yihiin brevet marka fanaan inaan noqotid yaa kugu dhiirigeliye run ahaantii fanaan inaan noqdo wuxuu ahaa hamigayga koowaad wuu ahaa laakiin balse yaa kugu dhiirigeliye adi hamigaagu ahaa balse qof markuu hami leeyahay waxa jiro qof la taliya ah oo ku dhiirigeliyo waayo ani hadda markaan oo qorshe aan leeyahay waxa jiro qof aan u tagaayo aan dhahayo saasa jirto isaan noqon raba ma ila fiican tahay adi ma jira qof noocaas oo kugu dhiirigeliye way jiraan saddex qof ay u dhiirigelisay oo asxaab aan nahay صح أحمد علي يرد دايو ونيروبي جوجو halkaan ka salaameena Ahmed Ali hadaan maqlaysid walaal moha sidoo kale oo ku salaameena iyo saaxiibkii qaaska Ahmed Zaki oo aad u garanayso Zaki Zaid waan garanayaa marka heestaadii ugu horeysay yaa ku laxamay laxan ku saare magaceedana maxay ahayd heestaada heestii ugu horeysay waxay ahayd hees aroos ah waxaa la dhahaa Sugar Diamond hay okay marka heestaas yaa ugu talgashay heestaas waa hees aroos maadaama hees aroos ay ahayd waxaa ugu talagalay si horaan baan u sheegay gabar aan aad u jeclahay oo la dhahaa Sugar Diamond waan gartay heestaas ma nagu luuqeyn kartaa hay laba ama hal mid kale heestaas adigoo isticmaalaya codkaaga caadiga ah sida dogle wax dhalaalo dhamay xareedii shukri qurxoonay dhayaha uroonay dhaladee aroos wacan wallahi horta codkaaga waa waxaa tahay libaax banaankiisa dega ma fahmino horu soco ku leeyahay su'aasheeda labaad waxay tahay heestaas kadib ma jirtaa hees kale oo soo qaaday haa way jirtaa waxaa ku xigtay heestii la magac baxday maseer waa hees qiso wadato marka heesta maseer yaa oo la jeeday run ahaantii su'aashii hore ay weydiisay waxay ahayd haddii aan dib u laabto noloshaada wax caqabad ah mala kulantay Somaydin inkastoo aad igu dhahday waa private halkan kama sheegi karo marka heestaas maseer waa hees aan qaasa waxaa sameeyay abwaan joogo jigjiga abwaan daweeye wallahi intaan ka salaamayo halkaan ka salaamayna abwaan daweeye laxankana asaga saaray heesta waa hees qiso ah oo noloshayda ku saabsan marka heestaas ma soo qaaday mise weli hadda rabtaa inaad soo qaadid waa soo qaaday heesta erayadeeda abwaan daweeye ku siiyey yaana ku laxmeeyey abwaan daweeye la laxmeeyey asaa laxmeeyey erayadana asaa ku siiyey asiga qoraha muusigana yaa ku tumay muusiga waxaa ii tumay macalinka weyn DJ Roba waa ninka kaliya islii heesto
inkastoo Soomaali u garanaynin nimanka Islaamiga haba marka heestaas official ma u sameysay mise official adii heesta lyrics aan u sameeyay laakiin official uma sameynin marka inkastoo caawa barnaamijka ciida aan ku jirno heesta maseer laba ama hal ma nagu dhufan kartaa kaman ballantiyo muraadkii iyo mowqifkeeni mar horaad burburisood ku bilowday muran culus mar haddaad kalsoonida muftax iyo muraadkii maankaagu dilay shalay maxan maanta kugu fali because horaan anoo jecel ay iga tagtay haye kadib marka way ii soo laabatay hadda waxaa taaganta maxaa maanta kugu fali haa oo muxuu dhahayaa masarkii muxuu taaray shakigii muxuu qaawan warniyo anaaba qiimaalisay hadda ka hor qisay ku dhacday soo xasuusta wallahi kalsoonida maxbuuska heestaad inaa status-ka caawa marka jacaylka waxaa la rabaa inuu leeyahay kalsooni marka heestaas waxaad ka heli kartaan youtube-ka Axmed Jecelow haddaa ka wada bogateen marka su-aashii saddexaad waxay tahay meeqaa hees camal aa soo qaada adi والله هست شكر دايما ايغو ريسي هست مسيرة ايغو حكتي هست gobolada ايغو حكتي heesta gobolada yaad u qaaday heesta gobolada guud ahaan waxaan u qaaday nin walba meel buu ka soo jeedaa gobolada aan u qaaday heesta waxaa sameysay abwaanad oo reeboram ah oo la dhaho idil oo hadda ku biirtay fanka oo joogto jigjiga heesta ida qortay laxankana ida saartay marka heestaas official musu sameysay ها official waa u sameeyay darad dhawet hees waxaa arkaayo oo cusub oo adi aa soo saartay oo heestaas magaceedan kolley qiso dhabna way wadatay heestaas magaceeda ii sheeg bal heesta waxaa la dhahaa idil marka yaa kaa duubay heestaas yaa kaa duubay heesta waxaa iga duubay yar Fahad la dhahayo heesta waxaan u qaaday gabadha hadda aan sheegay abwaanad idil oo heesta gobolada sameysay waa hees ammaan oo iyada aan ku ammaanayo marka qof fanaanka markuu soo heesaayo qof baa usoo libisaayo qof baa director gareenaayo marka heestaada yaa director gareeyadi wallahi heestaas waxaa director gareeyay Axmed Zaki waa saaxiibkaagii maasha Allah halkan hadda waa hamiga hadda heerkan hadda aad joogtid meel ka sareysa ma rajaynaysaa inaad gaartid adi waa ku hami weyntahay Soomaan marka because nin walba waa hami uu leeyahay mar buu gaar marka adi meeshaan halkan aad joogtid kaliya businesskaaga fanaannimo ma u rabtaa mise business kale inaad samaysataa jeceshaadi run ahaantii ana waxaan rabaa inaan noqdo fanaan caan ah marka ma rabtid miyaa business kale inaad samaysatid oo kaliya waxaa rabtaa inaad ku ekaatid fanaannimadaada business kale haddii aan sameynayo horena samaysan lahaa oo fanaannimada waa iska dhab ma gelin soo hamigayga waxaa waa inaan fanaan aan noqdo soo markaa rabto inaad hami yeelato horaan waxay dhahday Soomaali laba qaawan isma qaado soo marka laba hool isku meel ma geli karto marka inkastoo hadda fanaaniinta badanaa waxaa jiro fanaan oo markuu xaflada loogu waco oo dagaal iyo waxa ay foodo ku furmo aad caqabadaas wiligaa ma la kulantay caqabada waa la kulmay marka sidee ku xalisay around December waxaa fiican marka dib walba uu kusoo gaaro maadaama aad tahay fanaan Soomaaliyeed dib walba uu kusoo gaaro inaad dhabarka saarato soo adoo lagu xumeeyay haddana adiga lagu xumeeyay al rabaadana arrintaas inaad adiga xaliso marka wiliga stage oo bulsho dhan Soomaaliyeed joogto ma ka heystay waa goorma waa taariikhdee heesta gobolada حفلة عن قدها فرة الفنان أحمد
su-aasheeda kale waxay tahay qof walba dooq buu leeyahay horta dhanka gabdhaha marka adi dhanka gabdhaha haddii loo baxo gabdhaha sidee ku dooqan lahayd aada umahadsan tahay su-aashaad weydiisay xagga dooq haddaan ka hadlo midda koowaad gabadh waxaan rabaa inay ahaato gabar degan oo edeb leh haye markay kaa hor imaatana isha aad la jaleecdo haye itaal leh haye joogna leh annaga dhan aan sugayna taas waa iska sugi doontaa marka adi hadda wax xiriir ama leedahay wallaahi uma malaynayo uma malaynayo xiriir ma lihid uma malaynayo uma malaynayo taant waa private soomaan haye ka gudub wax mukhaadaraad ama isticmaashaa inkastoo fanaaniinta hadda gebigood hadda dhammaantood ma dhihi kari adi kasoo qaad fanaaniinta waxay isticmaalaan sida hadda mukhaadaraad oo kale stageka markay soo korayaan adi wax mukhaadaraad ama isticmaashaa fanaanimada muqaadaraad kale maxaan ku filaa maya adi hadda wax darooga ama isticmaashid miyaha ma isticmaalo alfanaan su-aasheeda xigta waxay tahay fanaan walba fanaan buu ku daydaa uu taageeraa adi fanaankee ku dayataa waxaan ku daydaa fanaanka koowaad xasan samatar xasan aadan samatar hal hees aa ka xasuusatid ma jirtaa ma noogu luuqin kartaa adoo raalli ah noogu luuqay taageerahaagana maqalsii aaminay xusuusnow inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay admigu siduu rabo amay aniga ila tahay adna aada ogsoon tahay ifka intaan ku noolahay kaa ooli maayo alla yacizig su-aasheeda xigta waxay tahay aan kusoo gebgabeynaa barnaamijka youtuberkee taageertaadi xagga youtuber haddaan aado waxaan taageeraa darisle cabdi shaar cadde ninkaas anagoo dhanaa taageerno guul wacanaa ku rajaynaynaa asxaabtana halkan waa barnaamijka halkan uu noogu eegyahay asxaabta maxaa dhihi lahayd iyo taageeraha iyo intaba waxaa leeyahay asxaabta aad iyo aadaan ii salaamaya asxaabtaan iigu xiran iyo asxaabta ku xiran janalka aad baan ii salaamaya asxaabta ku xiran janalka maanka media aad iyo aadaan ii salaameynaa marka waxaan iga codsanaynaa janalkan inaad subscribe noo saartaan aad noo share garaysaan aad commentiga kasoo shidaan aad like-ta dhacdhac ku siisaan kulley waxaan lacag ma ahan loor jawaan aa qaadaysid ma ahan baradha aa qaadaysid ma ahan keliya waa taawanaysaa leesuulka bis gambaleelkaa ku xiranay barnaamij walba waa la soconaysaa la socda barnaamijkan barnaamijka ku xiga wuxuu noqon doonaa barnaamij xiiso leh teeda kale maanan ilaabin riwaayadii afduub baatituu way soo socotaa insha allah kamaysuun waaye dad badanaa lasoo wadaa dadkii hore aa ku arki jirteen ma ahan